وان إذن سلامة كلكوا عاجز معلمين تقارنوا وان لعبتين صماها أنا معلم مئه أقوياها أم تاجر وحيدين فائدين ينمئه وحانا قف مردو كصوبحي حارون دقن علم كان صعا في ماذا حانون نقو كقاضي من دوريالو استعمال الشري waxa aan halkan u imid in aan idinla wadaago xumaanta aan ka dhaxlay khaatiraadka aan isticmaali jiray waxa uu iga dheereeyay nolol walba oo uu aadamaha caadiga ku noolaan karo aan u noolaa sida xayawaanka oo kale ninkan waa cali waana curyaan laakiin waa tilaa ugu taajirsan waddanka aynu ku noolnahay ninkan ganacsi ayaa naga dhexeeyay laakiin waa uu khiyaanay hantidiisa dhameed wuxuu kusoo iibsaday dahabka wuxuu ku rijiraa masaakiinta hantidaas aniga ayaa leh وانا ايجي سو خادام انت اوسن بريكوري جن مساكين تاس من ربنا مركب بمركب مقعيس
waxa aan halkan u imid in aad igu soo wareejisid luulka aad haysid. waxa aan ka mid ahay ciidanka mudana Guure. u sheeg mudanahaaga inuusan sidoo raba cidna ka helin karin noloshan, laakiin ay iyaga naga yeelan karto wax aynan doonayn. lug, gacan, intan waa la-aan karaa, laakiin halkan ayaan ka noolahay. mana laga yaabo Guure sida adiga oo kalena u ahada addoon. labada gaangister ee ugu weyn magaaladan, Zuhaib iyo Kaafi, soo dhawaada. maanta anigoo ah madaxa dambi baarista ee magaaladan ayaa halkan idinku balamiyay. weli ma aysan dhicin dambiilayaal kiiskooda anigoo aan qabto magacooda iyo wajiyadooda aan iloobo. waxaa la laayahay Sihaam muddo 5 bilood ah. Sihaam waxay ahayd gacalisadaada. waxaan xog ahaan u hayaa inaad u gacan qaatay iyadoo kaaga digaysa isticmaalka daroogada. soo lagama yaabo inaad adigu dishay gabadhaas kadibna aad meel ku qarisay.
ma ahan haddii sharciga mas-uul lagaaga dhigay inaad sidaa doonto u isticmaali kartid. adigu waxaad jecleed Siham adigoo og in ay ninkan jeceshahay tirashan jar ahna waad u hanjabtay waxaan ka shakisanahay hawaayitaanka labaaya gabadhaas inaad adigu ka dambaysay labadiina magaaladan kama bixi kartaan amar la'aanteeda shaqo walba aad heesaan markaan idiin baahdo waa inaan idin helaa haddii ay dhacdo inaad lug ku leedahay gacalisadeeda waayitaankeeda waxay noqon doontaa maalintan maalin aad ka qoomamayso. maxay maalmahaaga uga mid noqotay? maxay ahaayeen warqadahan? aqahan waxaa ku qoran adiga sihaamteyda heshiisyo ganacsi inaad ku tartanteen dhammaantoodna ay ku guulaysatay. taas waxay caddaynaysaa cadowga keliya ee ugu weyn ee ay leedahay inaad adiga tahay midkiisa Siham. aniga Siham cadowgeeda ma ihi, mar walba ay guulaysato waan u hambaliyeyn jiray. qofka nolosheeda cariiriga geliya ee mar walba igaga calaacali jirta waa mar walba waxay iga kaa calaacali jirtay sida aad u niijibisay. ma laga yaabaa nolosheeda in dartaa ugu dheeraato? nafteeda waan dhaawici karaa laakiin lagama yaabo xumaanta aan u dareensanay xataa inay wejigay ka daranto Siham. waa mid adiga iyo noloshaadaba u fiican in aydan la kulahaanin waayitaanka gacalisadayda daahir. waxa aan ka codsaday shirkadda isgaarsiinta inay siiyaan warbixintii u dambeysay dadka soo wacay amaba ay wacday Siham. fariin u soo diray amaba u dirtay waxaa ka mid ah fariintaas aad adigu dirtay. waxa aad ugu hanjabtay haddii aniga ay iga fogaan weydo in dhinacaaga uu dhib uga imaan doono. maxaad ugu hanjabtay Siham? hanjabaad ka bacdisa maxaad ku samaysay? sababtoo ah intaas Siham jeceshahay in ka badan ayaan anigu ku jeclahay, mana doonaynin inaa kalena agtaada ku arko. waan muranay Siham habeenkaas, mana aqaano waxaan ku iri. laakiin waxaad ku samaysay ayaad ogtahay soo maahan. ii sheeg maxaad ku samaysay Sihamteyda? maya lagama yaabo qof naftiisa inaan gooyo ama aan ka qayb noqdo goynteeda. aamin Suhayb, aniga Siham ma dili kari mana abduubi kari, laakiin adiga sida haddaa ku fikiraysid samee waxaad jeceshahay. ay doontahay marsiiso Siham ma xumi, laakiin waxa guul darro ii ah ay dartay wax u gaaraan. Siham ibda afduubato waa lagu soo ogaaday waana ay ku nooshahay gacalisadaada, laakiin markaas waxay tahay hal shuruud oo ah si loogu heli lahay waraaqdan naqshada ee caddeynaysa sida biyo loogu heli lahay magaaladan. waxaan rabaa inaan dadkaas la kulmo
ka hor laakiin waa inaan arkaa Sihaam. maya Suhayb midaas waa ay diideen kaliya wixii rabaan waa inaan u samaynaa haddii aan rabno inaan badbaadino Sihaam nasiib xumo naqshadaas waxaa daba taagan adiga walaalka 24 saac soo socota waxa aan ku keenayaa cidda gacanta ku haysa naqshadaas haddii ay dhacdo inaad been ii sheegto waxa aan iloobayaa inaad tahay mudanahayga marna saaxiibkay aan baabi'in doonaa wax walbood haysato xataa hadday noqoto naftaada guura waxaan hubaa jacaylkaada oo keliya guusha aan doonaya inuu gaarsii doono waan ku salaamay Subeer maxaa halkan ka suubinaysaa Suhayb kama xumeyn aabbahay ku dhalay laakiin waxaan ka xumahay sida aabbaheenu u xumeeyay hooyadii adiga iyo walaalada iyo hooyadiin darteed midaas waa adiga dhibkaaga maxaad igala kulmaysaa xataa aabbaheen xaqdarada uu sameeyey hantidiisa oo dhan waxa uu siiyey 3 nin walaal anigana inuu wax siiyo iska daayay xataa waxa uu iloobay inaan wiilkiisa ahay nacaybku sidiisa waxa uu kugu hogaamiyaa xumaan midaas waxaa caddaan igu filan noloshaada sida u baabi'ayso maalinba maalinta ka dambeyso waxaad gacanyaro u tahay uga la yaqaana ee guura Suhayb midaas halkan uma imaanka hadalkeeda ee waxaan kuu sheegayaa inaad iska dhaaftid raadinta aad raadinaysid naqshadaas sababtoo aniga ayaa raba waan ku faraxsanahay inay tuugada magaalada ay bartaan ganacsiga laakiin waan ka xumahay cid walba ayaa raadinaysa nashqadaas midaas waxaa ku xiran aniga jacaylkayga cid walba isku dayda inay hesho naqshadaasna aniga ayaa ka hortaagan in aadan baabi'in ayaan kaaga digayaa jacaylka sidiisa waa cudur inta caawa ka caafimaad ayuu haddana isla subaxii kugu soo laabtaa hal su'aal ayaa isweydiiyaa nolosheeda maxaa naga fogaanna ah jacaylkaaga mararka qaar waxaad ogaanaysaa in nolosha jacayl kaliya uusan ku anfacaynin
oo waxyaabo kale aad u baahan tahay. waxaad arkaysaa laba qof oo isjecel oo haddana aan isfahansanayn sideen oo kale. aniga waan ku jeclahay Sihaam. waa been aniga ima jeclid haddaa jeceshahay guuray dadkiisa lamaada shaqayseen marna maada qiimeen codsigayga Suhayb. ma jecli inaad shaqadeeda ka hadasho. aniga waxaan ahay nin xun oo daraagista ah. ma taqaanaa sababta. aabbahay ayaa jecel inaan sidaas ahaado. waa isaga farxaddiisa. hadduu aabbaha noloshiisa kaa dheereeyay oo u diiday inuu ku dhaho aabe maxaad naftaadu ciqaabaysaa maxaad nolol fiican u samaysan la'daa Suhayb. waxa aan shaqadan u hayaa in maalin unaa noqday gaangistarka magaaladan ugu weyn. kadibna aabbaha aad leedahay wuu ku dhalay. inta uu hoosteeda yimaado awoodda iyo hantida uu ku faanayo in aan baabi'iyo. waana gaarayaa midaas. waxaad jeceshahay gaar sidaad jeceshahayna u gaar laakiin markaa nolosheeda soo baahatid garabka maanta ku ahay lagama yaaba inaa ku ahaado Suhayb. sida la wada ogsoon yahay magaaladan aanu ku noolnahay waxaa ka dhici rabtay biyo la'aan. cid walba waxay og tahay magaaladan in ay haysato hal fursad ama hal dariiqo ay ku heli karta biyo. laakiin nasiib daro isku dhac dhex maray qoboradii baaritaankaas samaynaysay. naqshadii ay sameeyeen ilaa hadda cid og ma jirto meel ay taalo. fahmin sababta waxaasoo dhan iigu sheegaysid askari. sababta aan kugu sheegaya ayaa ah in aabbaha ahaa madaxii injineeradii sameeyey naqshadaasi. qofka keliya ee arrintaas iga caawin karana waa adiga. Esther waxaadan ogeyn maalqabeennada caalamka iyo kuwa waddankan in ay lacag ku raadiyaan naqshadaas. waxaa jira kooxo burcad ah oo doonaya in ay magaaladan maamulaan. adiga xitaa naftaada halis ayay ku jirtaa. askari waxaan ka xumahay inaan hadda ku caawin karin laakiin waxaan diyaar u ahay inaan galo qayb ka sii ahaado dagaalkii aniga aabbihi magaaladiisa ugu jiray. intii midaas igu colaysanaysana diyaar. waa aniga shaqadeeda in aan ku difaaca Esther. haddii aad wax ka ogtahay ama aad rabto inaad wax ka ogaatid hadda kadib naqshadaas adiga aabbaha hayay meesha ay ku dambaysay nala soo socodin doontaa. maxaad halkan igu balamisay?
magaaladan weyn aad u jeedid muddo 3 sano kadib waxaa ka dhici doona biyo la-aan aada u baahsan. midaas oo saameyn doonto 12 milyan ku nool. ninkii biyahaas baahidooda buuxiya waxa uu noqonayaa hantiilaha ugu taarjisan magaaladan ama dunidoo dhan. midaas waa wada ognahay. waxaa jira hal jid oo magaaladan biyo lagu siini karo. meelo badan ayaana shaqadaas hore u caddeeyay. ninkan shaqadaas hela waxa uu ogaani karaa halka biyahaas ay ku jiraan iyo sida loogu soo saari karo. ninkii hela oo keliya ayaa magaaladan biyo siini karo. sababta aan kugu wacay ayaa ah midaas. adag iyo guura oo keliya ah ayaa doonayana shaqadaas. waxaan idinka digayaa inaad iibsato shaqadaas sababtoo ah aniga ayaa doonayo. hanti walba oo leeyahay waan ku bixin doonaa nashqadaas si aan u helo. mashruucan wuxuu ahaa riyo aabbahay lahay. waan ku qasbanaa inaan rumeeyo. maxaa idinku dhacay oo aad la murugaysantihiin? walaal xawaan ku gaarnay hantida oo la kansooy in wax laga siiyo. haa walaal xaqaa ku leenahay ayuu ku leeyahay. ninkaas waa tuug. aabbeen waxaa u dhintay wajixumadiisa dartiisa. laga yaaba xataa inaan ka ogolaado inuu sheegto magaca aabbeena. waa dhiiga naga dhexee wax ka weyn ma lahan. asiga maanta wanu baahan yahay anakana waan baahanna. walaal xanaaqaa qabta iska ilow. haddii kale dadaalka aabo ayaa u sheegaynaa walaalkeen. aniga miyaad ii hanjabaysiin maanta? waxaad doontaan ma suubini kartiin, laakiin lagama yaabo inuu ninkaas gurigan ku soo noqdo. idinkana ma bixi kartiin hadda. waa ku salaamay Zubayr. soo dhawaad askari Cadnaan. maanta maxaa u timid inaan waddada ku tusiyo? waad mahadsan tahay. waxaan ku fiicanahay waddadeeda halka ay tusta ayaan qaadaa. natiijadeedana kama xumaado. laakiin waxaa jira dad nolosha waddada ay dadka kale u diidaan iyaga qaada, sida adigoo kale. kuma fahmin macnahaaga askari. waxa aan ogahay hantidii aabbaha dhaxal ahaan kaaga dhintay ayaad rabtaa inaad ku bixiso raadinta naqshadaasi. laakiin waxaa nasiib daro ah inaad la shaqaysid tuugadaas.
ganacsiga sidiisaba waxuu u baahan yahay faa'iido meeshay doontaa ka timaado. shaqadeedu waxa ay faraysaa inaan ka hortago intaysan iman xumaanta. maalin wanaagsan. aniga walaalkaa ka yar baan ahay. aabbu wuxuu igu aaminay hantidiisoo idin, weliba magaceyga ayuu ku qoray. sababtoo ah adiga waxaa tahay sarqaan xun, naftaada daroogo, qamri iyo xashiish ayaad ku iibsatay. waa run, aabba aniga kaa jecel yahay, sababtoo ah ceeb umaan soo jiidin sidaadoo kaleeta. sharafta iyo sumcadda reerka ayaad baabi'isay, laakiin aniga magaca aabba kor ayaan u qaadayaa. adiga hadalkaaga ayaa batay, qaabtaadana waa saas. aabba camal ayaad ii canaanatay. marka arka qof dabeecadaha aabbalana madaxa ayaa xanuuna. زين بحودي ولكن وإنا كان مصنع وحي سبعين ساعة وحا أقوي لستو قعدت لي أبدي ليا أوكي كرب الموسيقى دي بسهيل وحا قاب كفر إنه سوق لنغشينا وحا كشك سراي زبير إنه يهولا كاي كرب waan ka xumeeyay Suhayb, aniga kuguma caawin karo intaan ka ogeey naqshadaas, sababtoo ah waxa aad la shaqaysaa nimankaas tuugada ah. haddii aan helo naqshadaas jacaylkayga badbaadaya Esther. dadka afduubtay gacalisadayda kaliya waxay badbaadinayaan haddii ay helaan naqshadaas, kale waa ay dilayaan.
maanta oo keliya ii badbaadi jacaylkayga wax kastoo jecesha waan ku sameeyay naqshadaas kuma siin karo sababtoo aan ma haayo laakiin waxaan kuu sheegi karaa meesha ay taalo adigana waxaad iga ballan qaadaysaa inaadan xidna la wadaagaynin anigana maanta laga bilaabo magaaladan waan isaga tagaaya waxa aan ogahay saddexdiina qof ka mid ah inuu hayo xog ku saabsan naqshadaasi waa kuma qofkaasi ma jirta sir ka qarsanaa karta booliska magaaladani laakiin waxaa nasiib darro ah ilaa hadda in aadan wax caddayma ahaynin annaguna kuma caawin karno askari waxaan u mid halkan inaan kuu sheego arrin farxad leh maxkamadda sare ee waddankan waxay u ogolaatay inaan ka bixi karo waddanka adiguna haddaad wax walba samaysid imaad calin kartid askari waqtiga naga qaadan waqtigeennina waa qaali adiga waxaan kuu hayaa inay nooshahay Sihaam weliba ay caafimaad qabto mana ogolo in aad ogaatid ku nooshahay iyo weliba sida ay u nooshahay sababtoo ah waxa ay go'aansatay in ay nin kale nolosha la wadaagto daahir magaaladan wuu iskaga guuray istarna waddanka way ka baxday kaafina hadda ayuu socdaa guura iyo suhib idinkana waa idinka war sugayaa waxa aad samaynaysid waa khalad Sihaam nolosheeda wax u wanaagsan waan aqaanaa go'aankeedana waan gaaray laakiin noloshaada aniga xaq ayaan ku leeyahay sababta ah waxaan ahay jacaylkaaga waan ku baryaa inaad fahantay isku day waa ballan aan kaa qaaday waan daynayaa daroogo xashiish iyo wixii la mid ah waa ballan imise balan ayaad iga qaaday waana rumayn weyde waxaa dhaba inaadan daroogadan iska dayn karin aniga noloshaada waan kuu dhaafay midaan jeclaa ayaan samaysanaya waana ku qasbanaa midaas maya waa been ma samayn kartid midaas cid ku guursan karta male inta aniga aan noolahay haye maxaad samaynaysaa ma dilaysaa ninka aniga guursanayo sidii saaxiibkaa oo kale haa dil ciddaad doonto maxaad kale oo taqaanaa mid iga dhigayso waxaan ka shalayaa jeclaashahan ku jeclaaday waa run waa ku jeclahay laakiin lagama yaabo inaan nolosha kula wadaago waa ku barya ii dhaaf nolosheeda hadday dhab tahay inaad jeceshahay
أنا ما دلين أنا walaalkay ma dilin aniga walaalkay ma dilin waan jeclahay walaalkay ha waan jeclahay walaalkay dhibkaana waxaa ii geystay guure isaga ayaa daroogadan iyo xashiishkani baray adiga ayaa iga dhiga xayawaan aan waxba kala saarayn waa inaan kaa aarsadaa waxa aad igu kaliftay in aan walaalkay gacanteeda ku dilo xib ayaan kaa dhigtay laakiin darooga iyo xashiish ayaad i bartay waan ku siinayaa faa'iidada waxaad i bartay guure waan ka xumahay dhimashadii walaalkeen ma aqaana si ay wax u dhaceen dembigayga cid cafin kartaa dunidan kuma noola idinkoo walaalahay a mooyaane waxaan u baahanahay garabkiina
yaa tahay adiga maxaad se u rabtaa inaad ila dagaashid waxaan ballan ku soo qaaday in aan la duugin meydka walaalkay cali anigoon ku dilin ma daashay taas ka badan aniga ayaa nolosha ku daalay adiga waxaad u aaman tahay inaad dhiiggayga daadiso anigana waxaan u aamanahay in aan nasto middaasna waxaan ku heli karaa in aad i disho walaalkana aad argoyso halkani waa halkii aan walaalkii ku dilay in aan ku dhintana waxba uma arko ciqaab waxaa kugu filan nolosha aad nooshahay sababtoo ah silac ayaad ku nooshahay askari naqshadan haddii adiga gacantaada ay ku jirto waxa ay la micno tahay in dadka magaalada ku nool ay badbaadayaan 5 sano u dambeysay waxaan daba socday kiiska naqshadan zeed magaaladani dadkeedaba wax fiican ayaad u sameysay liya waxaan ogahay in aan magaaladan ku dhex geystay dambiye fara badan ciqaabtayduna ay tahay xabsi askari marka waajibkaaga waad gudan kartaa adigoo raalli ah ruuxii dembi geysta ee ka soo laabta ugu dambeyntiina wanaag samaysta qofkaasi sharciga agtiisa dambiile kama aha zuhib waan kaasii tegayaa lixdii bil ee u dambeysay waxaan dabagal ku hayay Esther nolosheeda waxa kaliya aan ka ogaaday hal qof in ay sugayso qofka uu yahay aniga waan ogahay adna waad og tahay aad ayaad una sii badan tahay Suhib
halkii aad ku dhalatay waad ka soo dheeraatay sababtoo ah qof kuu dhow ayaa ku dhaawacay Esther. haddii uu qofku dhaawaco isla markaanaadan ka argoosan karin dhaawacaas xanuunkiisa maahan mid ku dhibaayo si walba oo uga agnooshahay. bini aadanka mar walba waxa ka maqan ayuu tabaa, laakiin haddii ay dhici lahayd inta hareeraheena taalla inaan u fiirsano mar walba qanacsanaan ayaan ku noolaan lahayn. Suhayb, walna isku dayin inaad dhisto qalbi qofka quustay noloshiisa, haddii kale midkaaga ayaa ku dhaawacmaya midaas. Amaan ma laha haddii qofka aan ogahay inuu si dhaba ii jecel yahay intaan qalbigiisa dhisayo oo kaygu ku dhaawacmo. waxa aan diyaar u hayna nolosha kula wadaago ee guursanaysaa Esther. ma ogeyn wax aan ku sugnaa markii aan gacanteyda ku dilay walaalkay. waan ogahay dembigaan galay inuu sacafis lahayn, haddana waxaan diyaar u ahay in aanan dib ugu laaban addoonna u sii ahaana intaan ka badan muqaadaraadkan. waxa aad doontaan ii bixiya, magaca aad doontaan iigu waca, laakiin middaas dib iguma riixi doonto inaan dib ugu laabto noloshii xabsiga ahayd. waxaan rajaynayaa in aydan marnaba raacin waddadaydii xumayd, sababta awajiyadiinna qurqurxan uma qalmaan noloshaas boosha.